صحابيا إله إذا بالمية وقلبوا الله عزيز هو الله سبحانه وقد خاب من حمل ظلما وحاولوا يصف ظلم حقارته عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر هيا وحجري هذا حديث تصور انه حديث في راس الماميه ونظر ابن عمر يوما الى البيت يقول ابن عمر مالك كعبره تنجيزها هي ترى الى بعضها الجنكه هي اللي تبين بين الغضه وخلقنا كلامه وكان يقول ما اعظمك الله محاكاوي واعظم حرمتك الله محا حرمتنا هذا كله والمؤمن اعظم حرمه عند الله من كبير لكن قف مؤمنك اياه كحر نظر الهي اكفي تعلمه كعبده وحتى كحر نظر الهي اكفي قف مؤمنك لا اله الا الله محمد رسول الله الامام ودته يا كافه كحر نظر ولا ريال من شاعره وسر لسانك لا تذكر به عوره امرئ فكلك عورات والناس الجن عرف كذا قف ولد على شيء وهكذا هو محاضر دماغ عيادات هاي ضغط عربي لي ضغط عرب كفتاجه يقدر عرب لو داي بل waxa ka sii naxdin badan tahay qofka dadka eediisa qofka dadka ceebtooda carabkiisa ka qaban waaya marka uu dhimanayo ashahada carabkiisa laga qabta la ilaha illa allah wa rabbana yusallin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilahuna badbaadi wa nahruni oo ceebaha dadka kale ku mashquulno ilahuna badbaadi ilahu uu ceebooda ku mashquula laga dhig waxa loo baahan yahay waxa laga baxaya inaad aqoon yeelato oo khaasatan quraanka aad barato fariintu alla soo diray subxaanahu watacaala oo aad ku xisaabtanto waqtiga quraanka la dhigay waqtiga tafsiirka la dhigay aad ku xisaabtanto dadka qaarkood waa dhegaysanaya waa caadi markuu leedka socday markaa dhegaysanaysa istimid baa haddaad tiraahdo waan ka soo dhegaysan hadday doona shaytaanka uga markaasi kugu ciyaariyo beridaa dhegaysantaan dadaa dhegaysan adoo waxba isku keenin ayaa markaasi uu ku soo gaaraya waqtigu waxaa la ogaaday markaa qofku markuu dhankii loo dirsaday uu ka mashquulo wuxuu ku mashquulaadaa layidhi dan aan loo dira wakaa dadku ay isku mashquuleen waa kuwa haweenkii rabbi ku mashquulay rabbiina waa kuwa haweenkii ku mashquulay rabbi waa kuwa isku mashquulay iyagu haweenkuna waa kuwa iyaga isku mashquulay way iscaayayaan waxbay iska sheegayaan waa walaalo waa dad keliya inay isku dubnacaan bay ahayd inay isku hagar baxaan bay ahayd rasuulkuna muxuu yidhi waman satara musliman satarahu allah qofka qof muslima astura ilaahay baa astura ilaahay dhammaanteen ceebeena ha asturo waxaan ku ducaysanaynaa allahuma laa tusabixna calaa daahiri lardi walaa tucaadibna fii baatiniha ilaahow dhulka dushiisa ha nagu fadeexay hoostiisana ilah waa nagu cadaabi allahuma astirnaa taxta alardi ilaahu dhulka hoostiisa nagu astur wa fawqa alardi dhulka dushiisa allow nagu astur wa yowma alcardi maalinta adiga loo kaa bandhigayana ilaahu na astur taasaan ku ducaysanayna walaalayaal taasaan ku ducaysanayna qofku taa hadduu ku ducaysto ilaahay baa asturaya walaalayaal waxaa lagu ducaystaa markaa subixii aad soo waabadaysanayso garabkii aad soo garabaysanayso ducada lagu ducaysto waxa weeye allahuma astur cawraatina ilaahu ceebaha iyaga astur baa lagu ducaystaa ilaahu ceebaha iyaga astur ayaa lagu ducaystaa waxaana markaasi naxrin badan rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qof muslima ceeb kuma ceebeeyo ilaa hadduu ku ceebeeyo qofkaasi dhiman maayo ilaa ceebkii isaguna uu sameeyo inaad jiro ku ceebaysay adigoo jirada ma ku dhici midbaa ku ceebaysay markaasi akhlaaq xumo adna akhlaaq xumaa ku dhici sidaas daraaddeed maxaa lagu badbaadaa inaad dadka u tabafasho ilaahay muxuu yidhi wa axsinuu tabafala ina allaha yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu jecel yahay dadka tabafala ayuu jecel yahay wejigaaga bashaad ka dhig wejigaaga furfur doolla cadaynta ku dadaan sadaqa weeyi kelmada wanaagsan ku dadaan iska ilaali istiftaanka iska ilaali isdaweynida iska ilaali sida haddaad mid soo kala tagteen maxaa ka sheekay hakasatay hajaari buu kaa yahay xaaraan buu kaa yahay si kasta hadduu kuu soo dulmiyo xaaraan bay kaa tahay inaad wax ka sheegto wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi